Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo daafaha caalamka joogtaan kusoo dhowaada barnaamij gaara oo aynu kaga hadlayno madandaalada ciidda. barnaamijkan ayaa markaasi waxaad kala socotaan barta youtube-kan ku leeyahay maxamed turki channel. barnaamijku markaasi waxa uu ku bilaabmayaa laba nin ayaa waxay ahaayeen laba nin oo saaxiiba isla markaasina laba nin oo markaasi aada saaxiibo isugu dheera. dabadeedna maanta oo kale ayaa waxa ay soo gaadheen waqtigii ciidda. dabadeedna mid ka mid a ayaa labadii nin baa waxau yidhi waaryahay waxaynu u baahannahay hebelow maanta de inaynu maxaa kugu dhahda aynu si wanaagsan u kifaaxno isla markaasna aynu farxadda ciidda aynu dareenno. dabadeedna markaasi waxau yidhi sideebayn markaa waayahay maxaad inoo haysaa maar ama arrin. dabeedna markaasi waxau yidhi de waynaynu si wanaagsan aynu u mirqaanaa maxaan kugu dhahdaa aynu xidigaa 1 2 3 aynu dhahnaa maanta waynaynu soo taabanaa buu yidhi. dabadeedna markaasuu yidhi ma sidaasayo. dabeedna markaasuu yidhi haa. dabadeetna markaasaa wuxuu yidhi dee waayahay sideebayn haddaa aynu ku heli karnaa buu yidhi. dabadeedna markaa wuxuu yidhi dee maxaa kugu dhahdaayey xoolaha waxaad inoo soo qaadaayun maadaama dee rag xoolala ay nahay maxaa kugu dhahdaayey waa inaynu soo iibsanaa maxaa kugu dhahdaayey dee xoolaheennan aynu wax ka iibsanaa. dabeedna markaasaa wuxuu yidhi wani anigu tii islaan ahayd baan xoolaha isku haysanaayo haddaan saa neef ka iibiba igu maran ma garanaysaa markaas dee maxaan yeelaa. dabeedna markaasuu yidhi almadaa nin baa hadday maxaa kugu dhahdaayey aanad neef xoolaa aanad arigaa kasoo dhex iibsan karayn maxaad nin ka tahay buu yidhi. dabadeedna markaasaa waxau yidhi walle qodhii xerade waa inaan saa sameeyaa. dabeedna markaasaa waxau yidhi oo markaa waayahe sidee baan ku samayn karaa buu yidhi. dabadeedna markaa wuxuu yidhi de markuu arigu foofo maxaa kugu dhahdaayey jeexa ugu gabbo dabeedna neefuun tuurta u rido. markaasuu yidhi hayaay oo soo markaa nin soo la odhan maayo ninkii weynaa maanta yaa ma dawac u noqday muxuu ariga maxaa kugu dhahdaayey si wacan iskaga kaxaysan waayo soo laydhi qabsan maayo buu yidhi. dabeedna markaasuu yidhi are waliba tooshiyo laambad baad ahaydee maxaa kugu dhahdaayey iska habee baasha. sidii unbuu yeelay. dabeedna neefkiibuu soo kaxeeyey tuurtuu usoo ritay magaaladiibuu keenay. dabadeetna markaasaa waxa ay ninkii kalena isna intiisiibuu soo diyaarsaday. dabeedna markaasaa waxay yimaadeen meel maqaaxiya. dabadeetna maxaa kugu dhahdaayey qaad bay qaateen. dabeedna labadii nin waa fadhiisteen si fiican bay u fadhiisteen. dabeedna markaasaa markaa xoogaa la qaylayey buu yidhi waaryahay ma ku gaadhay baalku qaadku ma ku gaadhay. markaasuu yidhi xaggaanu iga gaadhin maxaa kugu dhahdaayey waxaan marayaa hawada iyo dhulkan kala dhex marayaa. markaasuu yidhi ka waran qaybta ikhtiyaaliga maskaxdu maxay sawiranaysaa. dabeedna markaasaa waxau yidhi waxay sawiranaysaa anigoo ka tegey hargeysa halkan intaan diyaarad ka raacay mee faras baan halkan ka raacay buu yidhi ilaa meesha waa miyiye. dabeedna maxaan kugu dhahay faraskii baan hargeysa ku tegey. dabadeedna markaasaan diyaarad baan ka raacay jarmalkan ka digay. dabeetna nin askari ahoo meesha maraya unbaad waxa unbuu igu yidhi anta soomaali. dabeedna markaasaan yidhi ar muxuu leeyahay. dabeedna mid baan ku yidhi ar bal ii sheeg muxuu leeyahay mid kaloo soomaaliya ila socda. markaasuu deedna igu yidhi wallaahi ma afgaranayo dee bogosuun baan qabadsiiyey buu yidhi. ninkii waa ugu tuuray. dabeedna maxaan kugu dhahay ilaa dhulkaasna waa dhul aad dee loo ilaaliyo amniga ar waxay ninka askariga dilo qabto oo deetana xabsibaabay ciidanka immigrationku ay geeyeen buu yidhi. dabeedna muddaan xabsigii ku jiray waa la soo saaray. waxaan idhi maxkamaddii markii la saaray waxaan idhi dee anigu ninkan waxay igula hadlay ma fahmayninoo deedna inuu imaagayaan moodow anna hidh baan ka galay. dabeedna dalkii baan xoogaa kharasha aan ka soo shaqaystay. dabeedna dibbaaba la ii soo celiyey waxa la idhaha ninkan waa maafiye celiya. dabeedna halkaygii baa la iigu soo celiyey. dabadeedna markaasaa waxaan bilaabay inaan xoolo badan ka iibsado meeshii. dabeedna markaasuu yidhi waaryahay oo waad mirqaantay ayuu dabeedna ninkii kale ku yidhi soodiga halkan ila fadhiya. masuu yidhi allah oo awel ma halkanaan fadhiyey daare cadcad iyo waxbaan sawiranayey. masuudna ku yidhi ka waran adiguna siduu kuu gaadhay qaadku. dabeedna markaasaa waxau yidhi anigana waxau ii gaadhay aniga oo maxaan kugu dhahdaayey anigoo dayax gacmeed sameeyey. dabadeetana hawada sare duulaya. dabadeetana maxaan kugu dhahdaayey soo ogaaday macluumaad badan oo ku kaydsan qoraxda iyo maxaan kugu dhahdaayey dhinaca ugu sarreeya ee maxaan kugu dhahdaayey dayaxa. markaasuu deetana yidhi wallaahi waa waali baynu wadnaa buu yidhi. labadeennaba halkan bayn fadhinaa haddana midna jarmalkuu leeyahay waan tegey midna dayaxuu leeyahay waan tegey. masuu yidhi arba halkan wallaahi dhibaatuu leeyahay dhibaato anigaasoo
islaantii baan arigii aan kala soo goostay buu yidhi oo maxaan kugu dhahdaa neef ariga baan soo welwaasho haddana waxaan leeyahay halkaasaan tegi adiguna waxaad leedahay dayaxaan tegi warba halkan weynin iska daynaa deetana labadii nin waxay noqdeen laba nin oo dadka aada u wacyigeliya oo dhibaatada uu qaadku leeyahay ka wacyigeliya ayay markaasi ay labadii nin ay noqdeen markaasi intaasi ayaan kusoo gebagabeynaa barnaamijkeennan aynu ugu talagalnay munaasabadda ciidda markaasi waxaan rajaynayaa in si fiican uu idin cajabin doono fadlan ha ilaawin dhinaca like iyo subscribe inaad tidhaahdo intayn barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waa aniga maxamed siciid cali oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo